guddiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siinaay oo dhawaanta u saaray hubinta arrimaha cabashadu ka timid ku saabsanaa shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa shir jirayd oo ay maanta qabteen waxay si ballaaran ugu faahfaahiyeen gudagalkii hawshaasi maraaxilkii ay martay iyo waliba natiijada go'aamadii uga soo baxay maxsuulkii hawlgalkaasi guddigan ayaa shirkoodaasi jirayd waxa ay ku cadeeyeen safayaashii iyo tallaabooyinka laga maarmaanka u ahaa hawshooda arrintan ee ay mareen hawshan madaxweynuhu guddida u magacaabay guddiduna ay ahayd xaqiiqa raadin oo wixii document ahaa iyo hawlihii qabsoomay oo muddo dheer laga joogo in dib loo rogo oo la baadho oo laga hubiyo wixii qalad ah isweydaaris ah gaf ah ama sharci jabin ah oo ku dhex jira laga raadinayay waxay qaadatay malaha maanta ku 6 sharci oo hawl galin hore iyo galin dambe la shaqeynayay baa la soo maray sidii nalagu aaminay ilaahina nagu ogaa bay hawshaas u qabsoontay wax lagu daray iyo wax laga dhimay midna aanu jirin wixii ka muuqday oo sawirka dhaba uu ka soo baxay guddidu waxay fadhigoodii ugu horreeyay yeelatay labadii bishii 11aad 2015 waxaana goobjoog ah 4 xubnood halka xubinta kalena ay safar dibadeed ku maqnayd isla maalintaas waxay guddidu samaysay qorshihii ay ku shaqayn lahayd waxaanay warqad u qoreen dhinaca hawsha shirka gacanta ku haysa warqadaas oo ay kaga dalbanayeen qodobadan hoos ku qoran kow inay u keenaan nuqul ka mid ah xeerka xisbiga nuqul ka mid ah xeeroosaadka golaha dhexe xisbiga liiskii asalka ahaa ee golaha dhexe ee yaallay xeer ilaalinta iyo guddida diiwaangelinta ururada liiska 10 xubnood ee madaxweynuhu magacaabay liiska 6 xubnood ee madaxweyne ku-xigeenku magacaabay liiska 23 xubnood ee guddoomiyaha xisbiga magacaabay sawirada la sameeyay ee ilaalimka la diyaariyay ee golaha dhexe xubnaha golaha dhexe iyo liiska dadkii golaha dhexe ka mid ahaa ee xisbiga ka baxay qaabka loo bedelay iyo wixii cadeema ay u hayaan inay sharciga waafaqsan karaan sidoo kale waxaan wasiirka madaxtooyada ka dalbanay liiska golaha wasiirada dhammaan waxyaalaha aanu dalbanay waxaan loo keenay 3 bishii 11aad bishan 11aad 2015 isla maalintaas waxaanu yeelanay kulankayga labaad ayadoo isla goobta ay joogaan 4 xubnood ee hore waxaanu gudagalnay hawshii naloo xil saaray oo aanu u qaabaynay sidan xubnaha golaha dhexe ee liiska ku jira inta joogta iyo inta maqan xubnaha golaha dhexe asalka inta joogta iyo inta maqan inta la sawiray iyo inta aan la sawirin inta la sawiray iyo magacyadoodu inay waafaqsan yihiin sawirada iyo magacyada dadku inay waafaqsan yihiin nasiib wanaag dadka 100% dawaanu garanayay sawirada iyo magacyadooda waan isu garanayay inta kalena waa naloo cadeeyay cidii garanaysa baa noo timid golaha wasiirada inta markii hore asal ahaan golaha dhexe deegaamadooda ka soo gashay iyo inta xilka ku soo gashay golaha wakiilada inta deegaamadooda ka soo gashay iyo inta xilka ku soo gashay intaasaanu markii hore kala dhignay oo kala cadaynay waxaanu dhamaynay hawsha hubinta 5tii bisha oo daraadahayd guddigan waxay si caday shirkaasi jirayd ugu faahfaahiyeen wixii uga soo baxay hubintaasi hawsha hubinta waxa nooga soo baxay kow inaanu fariisinay tirada rasmiga ah ee golaha dhexe ee xisbigu inay tahay 390 xubnood 390 xubnood oo ku kala yimi qaabkan 240 xubnood waxay ka soo galeen deegaamada ka soo galeen 240 xubnood waxay ka soo galeen deegaamada 10 xubnood waxa magacaabay madaxweynaha 6 xubnood waxa magacaabay madaxweyne ku-xigeenka 23 xubnood waxa magacaabay guddoomiyaha xisbiga 6 xubnood waa hogaanka xisbiga oo si toos ah ay golaha dhexe uga mid noqonayaan hal xubin oo yana si toos ah golaha dhexe uga mid noqonayso madaxweynaha qaranka 740 kamida golaha wakiilada oo golaha wakiiladu waa 55 inta kale waxa ka soo gashay deegaamada 740 xilkay ku soo galeen oo 240 inta kale kamid yihiin 49 kamida golaha wasiirada oo yana xilka ku soo galay 7 xubnood oo ah guddoomiyaasha gobolada oo ayana xilka ayaan ku soo galay intaas waa 390 xubnood shirkooda si jarayd iyaga oo sii wada waxay guddigu sheegeen inay isdiiwaan geliyaan sawiradoodana aanu helay bay yiraahdeen 349 xubnood oo ka mid ah tirada xubnaha golaha dhexe inaanay isdiiwaan gelin 41 xubnood diiwaangelintiina weli socoto
inay jiraan xubnoo xisbiga ka baxay oo gaadhaya 3 xubnood inay jirto hal xubin oo dhimatay allah u naxariistay oo aan la soo buuxin 6 xubnood oo ka soo galay deegaanada kuwaasi oo isugu jira 2 wasiir iyo 4 xildhibaan oo xubinnimadii deegaanka ugu talagalay in ay baneeyaan kuna soo galaan xilka ay hayaan halkoodii deegaanadan ay ku soo galaan xubno kale xubnahaasi oo kala ah xildhibaan maxamuud ismaaciil bade oo isku bedelay cali barre warsame xildhibaan maxamed xuseen xaaji ciise oo isku bedelay cabdiraxmaan cali giire xildhibaan ibraahim axmed haybe oo isku bedelay cismaan xasan mire xildhibaan xasan cawaale caynaan oo isku bedelay maxamed ibraahim warsame wasiir axmed xaaji cali cadami oo isku bedelay xasan cumar hoore wasiir cali maxamuud axmed sandulle oo isku bedelay jabati axmed xasan 3 xubnood oo xisbiga ka baxay oo la soo bedelay kuwaasi oo iyaguna kala ah bay yiraahdeen cabdikariim baanday oo lagu soo bedelay xasan nuur abukor maxamed axmed aadan oo lagu soo bedelay maxamed iidimbiil maxamed nuur carhaale oo lagu soo bedelay maxamed ibraahim maxamed iyo maxamuud ibraahim axmed hal xubin oo iska casishay sabab caafimaad oo ah maxamed yuunus cawaale kaasi oo lagu bedelay xildhibaan cabdilaahi aw aadan maxamed guraaladkii shirkoodaasi jira eedig guddigu waxay soo saareen go'aano ay ku caddeeyeen natiijadii hawshoodaasi kuwaasi oo kala in haba yaraatee aan wax qalad iyo istabamarin ahay ku jirin liiskii asalka ahaa ee saxiixnaa sawiradooduna waafaqsan yihiin magacyadooda in xubnaha kale ah xildhibaan maxamuud ismaaciil bade xildhibaan maxamed xuseen xaaji ciise xildhibaan xasan cawaale caynaan xildhibaan ibraahim axmed haybe wasiir cali maxamuud sandulle iyo wasiir axmed xaaji cali cadami maadaama la raacayo liiska golaha dhexe ee yaalla xafiiska guddiga diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda iyo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka waa in ay xubin waliba sidii asal ahaan ay ku soo gashay golaha dhexe ay kaga mid ahaato lana bedeli karin islamarkaana aan xubin cusub lagu bedeli karin sidaana ay shirka ku fadhiistaan kuna dhammaystaan qodobka labaad in xubnaha kale ah maxamed axmed aadan weli xaawa maxamed nuur caraale iyo allah u naxariistay sheekh maxamuud xirsi oo geeriyooday ay iyagana jagooyinkoodu sidaa ku bannaanaadaan inta shirku dhammaanayo maadaama qaabka loo soo bedelay aanay waafaqsanayn xeerka xisbiga kulmiye qodobkiisa 31 faqradiisa 2 haddii aan inta shirka ka horeysa loo soo dhammaystirin shuruudaha xeerka xisbigu sheegay ee ka dhiman iyo qodobka ugu dambeeya ee 3 oo ah in xasan nuur abukar oo bedelay cabdikariim baanday iyo cabdilaahi awaadan maxamed oo bedelay maxamed yuunus cawaale loo ogolaado inay ka qayb galaan shirka golaha dhexe loona sameeyo kaararka xubinnimada maadaama qaabka loo soo bedelay uu waafaqsan yahay xeerka xisbiga kulmiye qodobkiisa 31 faqradiisa 2